agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland ayaa xafiiskiisa maanta waxa uu ku qaabilay safiirka dalka Taiwan u fadhiya Jamhuuriyadda Somaliland Ambassador Ernest Leon oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka mid ah madaxda safaaradaasi waxaana intii kulankaasi socday safiirka ay ka wada hadleen agaasimaha si xoojinta xiriirka wada shaqeyneed iyo iskaashiga ay labada wadan leeyihiin xilligani waxa uu ka gudoomay agab loo isticmaalayo kahortaga COVID-19 oo loogu talagalay madaxtooyada Somaliland iyo Taiwan ayaa xiriir toos ah wada leh waqtigani iyagoo kala seexday waxaana labadooda dhinac midba midka kale uu safiir u fadhiya wadamada Taiwan iyo sidoo kale Somaliland Taiwan ayaa xafiiskeeda dhawaan waxay ka furatay caasimadda Hargeysa ee Somaliland iyadoo si toosan ah wada shaqeyntoodu ay u bilaabantay agabkan caafimaad ee safiirka Somaliland oo fadhiya Taiwan oo ku wareejiyay agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa noqonaya agabkii ugu horeeyay ee kahortaga caabuqa safarka COVID-19 ee madaxtooyada lagu wareejiyo waqtigani agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile ayaa uga mahadnaqay safiirka iyo wafdiga wehelinayay agabkan ay soo gaarsiiyeen aan si qoto dheer u sharaxeen ahmiyadda xiriir toos ah ay wada yeeshaan Taiwan iyo Somaliland dhismaha qaran uu leeyahay Khalid Yuusuf Xasan Fantastic Television Gobonimo Hargeysa.